maanta waa maalin kale oo ka mid ah maalmaha taariikhiga ah ee dhismaha iyo horumarka hay-adaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan dhismaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD. walaalayaal waxaan rabaa inaan si kooban idinla wadaago xaaladaha dalkeena soo maray, halka uu maanta ku sugan yahay iyo jihada ay habboon tahay in uu u dhaqaaqo dalka si loo xaqiijiyo himilada dadka Soomaaliyeed ah inay gaaraan midnimo, nabad iyo horumar waara oo la hanan karo. walaalayaal 30 sano oo dowladnimo ay u dhammaystiran tahay haykalkii qarannimo buuxda kadib, dalka waxaa soo wajahay burbur dowladnimo iyo dagaallo sokeeyo oo galaaftay dad badan, kuwo kalena ku kalifay in ay ka gudbaan xuduudaha oo ay qaxootiyoobaan, halka kuwo kalena ay ku barakaceen gudaha dalka. taasi waxay horseeday isbeddel mug leh oo ku yimiday qaab dhismeedkii iyo wada noolaanshihii bulshada Soomaaliyeed. inta badan dadka Soomaaliyeed way kala irdhoobeen. waxaa meesha ka baxday hab nololeedkii ku salaysnaa dowladnimada casriga ah. waxaa loo noqday kii aan dhaqanka u lahayn ee ahaa beelo isbarbar dega kuna dhaqma xeer ka dhaxeeya. inkasta oo ku noqoshada dhaqankeenii soo jireenka ahaa uu wax badan noo badbaadiyey, haddana nooma bedeli karin habdhaqanka dowladnimada casriga ah ee naga burburay. burburkii dowladnimada kadib waxaa la sameeyey dadaallo badan oo la isugu soo celinayay dadka Soomaaliyeed si ay dib ugu unkaan dowlad loo dhan yahay, la wada leeyahay, haysatana kalsoonida shacabka si ay u matasho danaha dadka Soomaaliyeed oo dhan. 10 sano oo duruufo adag ah kadib, waxaa dalka Jabuuti maadaha ka gaartay lagu soo dhisay dowladdii ku meel gaarka ahayd sanadkii 2000. waxaa halkaa ka soo bilowday safar qaatay 12 sano oo dowlado ku meel gaar ah oo isxigxiga ay dalka ka talinayeen. sanadkii 2012 dowladdii ku meel gaarka ahayd ee ugu dambeysay waxay ku guuleysatay inay dalka ka saarto ku meel gaarnimadii 12 jirsatay. halkaas waxaa ka bilowday safar kale oo dowladnimo rasmi ah, laakiin ay weheliso qarannimo dhantaalan, maadaama dalku aanu midaysnayn, xuduudihiisa ay furan yihiin, ilaalinta amnigiisa aanu ku fillayn, dhaqaalaha weli burbursan yahay, bulshadiisuna ay si buuxda uga soo kabanin burburkii iyo colaadihii. intaas kadib, xaaladda maanta dalkeennu wuxuu leeyahay haykal dowladnimada dastuuriga ah sida golayaal sharci dejin iyo kuwo fuluneed, iyo sidoo kale haykalkii xukunka dalka oo ku salaysan nidaamka federaalka ee horey loogu soo heshiiyey kuna cad dastuurka ku meel gaarka ee aan leenahay maanta. waxaana joogta dowlad si dimuqraadi ah ku timiday. hase yeeshee, dimuqraadiyadda dalkeenna waa mid curdan ah oo aan ku dhisnayn hay-ado dowladeed oo xooggan, laakiin ku dhisan wada tashi, wada xaajood iyo isku tanasul si dib loogu soo celiyo kalsoonidii iyo aaminaadii dadku ay ku qabi lahaayeen dowladda iyo hay-adaheeda intaba. maanta waxaa muuqata in dhaqanka ama ruuxda spirit aan kor ku soo sheegay ee ku salaysan dulqaadka, isu samirka iyo tanasulka wax badan oo ka mid ah ay maqan yihiin ama aanay u jirin sidii habbooneyd ee ay ahayd inay u jiraan. haddiise aan sii kala qaado oo aan si kooban u cabiro xaaladda maanta waxaa xiran saaxada siyaasadda oo ay ahayd dowladdu in ay ku howlanaato sidii loo sii ballaarin lahaa, dadkana loogu dhiirigelin lahaa ka qaybgalkiisa. xirnaanta saaxada waxay yarayn kartaa ama meesha ka saari kartaa in lagu kalsoonaado howlaha muhiimka u ah qaabaynta siyaasadda loo dhan yahay
oo uu dalku yeesho sida kow dib u eegista dastuurka oo muhiim u ah geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed laguna horumarinayo. labo dib u eegista sharciga xisbiyada oo muhiim u ah dimuqraadiyeynta dalka iyo horumarinta ka qaybgalka siyaasadda. saddex dhamaystirka sharciga doorashooyinka oo muhiim u ah in la helo saaxad siyaasadeed oo loo siman yahay. afar iswaafajinta doorashooyin ku salaysan xisbiyo iyo nidaam matalaad oo lagu hubinayo ka qaybgalka siyaasadeed ee loo dhan yahay. shan qaabaynta iyo ka heshiinta deegaan doorashada ee doorashada baarlamaanka ee 2020. intaas waxay muhiim u yihiin geedi socodka dowlad dhisidda iyo dimuqraadiyeynta dowladda cusub ee aan hiigsanayno. sidoo kale maanta waxaa soo ifbaxaya raadadka biseelyarida naga haysata dhanka wada shaqaynta lakabyada kala duwan ee haykalka dowladnimada. haddii kow labadii aqal ee sharci dejinta ay leeyihiin sidaan kuma wada shaqayn karno. labo haddii dowladihii xubinta ka ahaa dowladda federaalka ay leeyihiin sidaan kulama shaqayn karno dowladda dhexe. saddex haddii xisbiyada qaarkood ay ka cabanayaan in la caburinayo lana baalmarayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal. sowma habboona in habdhaqanka siyaasadda iyo sida ay wax u socdaan wax laga bedelo maanta. waxaa intaas dheer walaalayaal dareenka maanta dadkeenna ee gaar ahaan inta danyarta ah inaan ayadana meesha uu ku sugan yahay wax isaga sheegno. walaalayaal waxaa lagama maarmaan ah inaan tilmaamo muhiimadda ay leedahay ka fogaanshaha abuuris xaalado kala dhantaalaya cilaaqaadka dowladda iyo shacabka isla markaasna luminaya waqtiga qaaliga ah ee ay u baahan yihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay kaga tashadaan qaabaynta mustaqbalka. maanta waxaa muuqda jawi ay ku dheehan tahay cabsi iyo caburin. ciriiriga saaxada ma saameynayso siyaasiyiinta oo keliya ee waxay sidoo kale saameynaysaa dareenka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed oo dhan. tusaale ahaan dadka danyarta ah ee noloshoodu ku tiirsan tahay dakhliga maalinlaha ah waxaa ka soo yeerayo cabashooyin ballaaran. kii gaari gacan ku xamaalanayay iyo kii gaari dameer ku shaqaysanayay iyo hooyadii ilmaha dusha ugu xamaalanaysay iyo tii waddada dhinaceeda shaahi ku gadaysay way ku adag tahay maanta nolosha maadaama ay marar badan magaalada kala xiran tahay isu socodkana uu adkaado. sidoo kale waxaa cabanaya kuwa ku shaqaysta baabuurta wax daabula sida kuwa qaada badeecadaha dukaamaysiga xaafadaha, kuwa ka shaqeeya dhismaha ee daabula dhagaxa, carrada, nuuradda iyo wixii la mid ah oo marar badan waddooyinka ay ka xiran yihiin oo aan fursad u heli karin in ay shaqaystaan si ay quutulyoonkii u helaan. sidoo kale marka kii maalgashiga sameeyey ee dhisay hoteel bilicsan ee leh adeegyada shirarka lagu yiraahdo laguma shiri karo hoteelkaaga, weliba si gaar ah shir siyaasadeed laguma qaban karo hoteelka, sow niyad jab kuma aha kuwa kale ee samayn lahaa maalgashi sidaasoo kale ah ee magaalada iyo bilicdeeda soo celiya. sow ma aha hoos u dhac sidoo kale ku yimid dakhliga dowladda ee ay ka heli lahayd iibka adeegyadaas iyo canshuurta kala duwan ee dowladda ka soo geli lahayd lacagahaas la isweydaadsaday sow iyaduna meeshaa kuma baaqan. sidoo kale hay-adaha dastuuriga ah si ay u qotomiyaan sharciyada lagama maarmaanka u ah dowlad dhisidda iyo dejinta siyaasad cad oo tilmaamaysa meesha loo socdo si aan loogu kala habaabin waddada dheer
ee dowlad dhisidda loo marayo waxay u baahan yihiin in la ixtiraamo, la garab istaago, loona madax banneeyo shaqooyinkooda loo igmaday ee ay u dhaarteen. waxaa hubaal ah oo aan shaki ku jirin in hoggaanka sare ee dowladda aanay ku heshiin oo aanay ku talin marnaba in dadka la dhibo. hase yeeshee waxaa habboon maanta hogaamiyaasha dowladda inay ka warqabaan tabashada iyo taaha ka soo yeeraya dadka Soomaaliyeed guud ahaan. walaalayaal, shaki noogama jiro in safarka lagu gaarayo dowladnimo dhammaystiran oo leh qarannimo buuxda uu dheer yahay, sahaydiisuna ay tahay kalsooni iyo is-aaminaad la is-aamino. is-aaminaad dhex marta dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo dadka iyo dowladda. haddii aanay is-aaminaadaas imaanin horay u socon mayno. haddaba maanta waxaa la joogaa waqtigii aan hurdada ka toosi lahayn oon dhammaanteen u guntan lahayn qaabaynta Soomaaliyada cusub ee suurtagalka ah. waa maxay Soomaaliyadaas cusub ee suurtagalka ah? walaalayaal, waxaan maanta ku taagannahay waddo aan ku sii tiigsanayno Soomaaliya cusub oo ka duwan tii shalay. waxaan aaminsannahay in Soomaaliyada cusub ay ka reeban tahay dhammaan asbaabihii sababay inaan ku dhacno hogga dheer ee aan maanta ka soo baxayno.